qiyaamada waxay ku dhacday asagaa shaqaystay biannahum bisababi annahum dadka ribada cuna qaaluu waxay dhaheen innamaa in kala maahane iska dhaafa markii la yidhi bay waxay dhaheen innamaa in kala maahane albaycu baycu mithlu riba war beeca iyo ribadu way isla mid bay dhaheen ribadu waxay la mid tahay dhaheen beeca marka maxay xaaraam u noqonaysaa ilaahay baa radiyo ilaahay wuxuu yidhi wa axalla allaahu albayca beeca ilaahay baa xalaaleeyey wa xarama arriba ribadana ilaahay wuu xaaraam yeelay beecu waa xalaal laakiin ribadu waa xaaraam beecu waa maxay masalan alaab baad iibsataa alaabtan baad tidhi intaasu shaygaanu ii joogaa shaygan waxaad ka soo bixda $10 $100 buu ii joogaa baad tidhi nina kuu diidi maayo waa ribixaagii saaro qofkii rabaa kaa gato qofkii rabaana ha diido laakiin beec weeye kaas ribixaad ka heshay dhib ma leh laakiin ribadu waxa weeye masalanba jaahiligu waxay samay jireen shaygaan bay kaa iibinayaan waa lagu dayminayaa masalan muddadiisii markii la gaaro haddaad dayntii bixin weyso lacag baa lagu saaranayaa sida haddaba gaaladu ay ku dhaqmaan adduunka waa riba la yidhahdaa waa xaaraam weeyaan ilaahay baa xarimay subxaanahu wa tacaala hadda gaal waajib ilaahay raaci maayo waxarama riba lima fiihi min adarar alfaadix bilfard walmujtamac ziyaado waxaa ku sugan mutaqadicatun min juhdi almadiin walaxmi wey faman jaa'ahu qofkay u timaad buu ilaahay yidhi mawcidatun waano min rabbihi ilaahaysa xaggiisa qofkii waana uga timaado falahu wuxuu leey oo fantahaa reebtooma falahu wuxuu leeyahay maa salaf wixii hormaray buu leeyahy intaan taxriimkeedu soo degoonin ka hor qofkii waanadu ay soo gaarto masalan markii aayaddu soo degootay baa laga hadlaya markii aayaddu soo degootay qofkii waanadu ay soo gaarta buu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala waanadu qofkay soo gaarto ilaa ka qiyaami laytaqabadhu shaydaanu fi cadami istiwaa'i alxaraka fi kullin walxaalatu almadkuuratu taxsulu lahum yowma alqiyaama cinda qiyaami min alqubuur qofkay waana soo gaarto waa qur-aanka oo rabbi xaggiisa ka timid oo markii aayaddaa qur-aanka ah oo ribada diidee soo degootay ka reebtooma ribadii iska dhaafa falahu maa salafa wixii hormaray buu leeyahy qabla nahyi intaan aayaddaa nahyigaa soo degoonin ka hor ribadii ou cuni jiray looma haysto waa macfi buu ilaahay yidhi wa amruhu amarkiisu cafintaana ilallaahi mufawadun wa mawkuulun ilallaahi ilaahay baa loo wakiisho loo bandhigay waman caada laakiin qofkii u laabta ribadii cunideedii oo marka la yidhaha ribadii baan kusii laabanayaa qofkii yidhaah ribadii baan ku laabanayaa oo macnaha waxa weeye ribadii u laabta buu ilaahay leeyahy qofkii yidhaha ribadii baan macnaha ku laabanaya qofkii yidhaahda waman caada qofkii laabta buu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala xaggee u laabanayaa waman caada qofkii laabta ribada cunideeda qofkii u laabta oo sidaa usii banaysta waman caada qofkii laabta buu ilaahay yidhi oo ribada cunideeda u laabta fa ulaa'ika duulkaas asxaabu nnaari naarta kuwa u saaxiibadaa weeye hum ayagu fiihaa naarta dhexdeeday khaaliduuna ku waarayaan waa kuwa naarta u saaxiibada ah naartayna ku waarayaan buu ilaahay yidhi acaadana allahu minha yamxaqu llaahu ribaa ilaahay ribada wou tirtiraa ribada ilaahay baa tirtira wa yurbi sadaqaati sadaqooyinkana ilaahay wuu ziyaadiyaa ribada wuu tirtiraa waxaa looga jeedaa ribada ilaahay wou nuqsaamiyaa barakadeedou baabi'iyaa wax khayra ma lahan wa yurbi sadaqaati sadaqooyinkana ilaahay wuu ziyaadiyaaho ilaahay baa macnaha waxa weeye sadaqooyinka siyaadinaya yamxaqu llaahu ribaa ilaahay ribada wuu tirtiraa oo macnaha waxa weeye ribada shay khayraba ma lahan hadde khayrba ma lahanba wa yurbi sadaqaati sadaqooyinkana ilaahay wuu kordhiyaa oo ilaahay baa qofkii sadaqada bixin jiray u barakaynaya sida nabigeennuba uu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam addoonka ilaahay baa sadaqada ka aqbala oo u siyaadinaya oo u barakaynaya weeyaan sidaa daraaddeed sadaqadu maalka ma nuqsaamiduu yidhi nabigeennu calayhi salaatu wasalaam wallaahu ilaahay laa yuxibbu ma jecla
kulla kaffaarin ruux gaalnimo badan kulligii ilaahay ma jecla ka oo banaysta xaaraamta kaasoo afiimin dembi badan ilaahay ma jecla aayaddaanna ilaahay wuxuu nagu leeyahay ina aladiina kuwii aamanuu ilaahay iyo rasuul rumeeyeen wa camiluu asaalixaati acmaasha suusuubanna camal faleen wa aqaamuu asalaata salaadana oogeen buu ilaahay yidhi wa aatawu zakaata zakadana macnaha bixiyeen weeyaan ina aladiina kuwii buu ilaahay yidhi aamanuu ilaahay iyo rasuul rumeeyeen wa camiluu asaalixaati acmaasha suusuubanna camal faleen wa aqaamuu asalaata salaadana oogeen wa aatawu zakaata zakadiina bixiyeen buu ilaahay leeyihi lahum waxay leeyihiin ajruhum ajirkoodii bay leeyihiin cinda rabbihim rabbigooda agtiisay ku leeyihiin walaa khawfun cabsina calayhim korkooda ma ahaanin walaa hum ayaguna ma ahan yaxzanuuna kuwa tiiraanyoonaya ma ahaanin kuwa tiiraanyoonayana ayagu ma ahaanin weeyaan kuwa tiiraanyoonaya ma ahaanin ilaahay aayaddaanna wuxuu nagu leeyahay subxaanahu wa tacaala ina aladiina aamanuu wa camiluu asaalixaati ina aladiina kuwii aamanuu ilaah iyo rasuul rumeeyeen wa camiluu asaalixaati acmaasha suusuubanna camal faleen wa aqaamuu asalaata salaadiina oogeen wa aatawu zakaata zakadiina bixiyeen oo macnaha siiyeen dadkii masaakiinta ahaa lahum ajruhum ayuu ilaahay leeyihi ajirkoodii bay leeyihiin cinda rabbihim rabbigooda agtiisay ku leeyihiin walaa khawfun cabsina calayhim korkooda ma ahaanin walaa hum ayaguna ma aha yaxzanuuna kuwa tiiraanyoonaya ayagu ma ahaanin hadda aayaddan waxaa lagu ammaanayaa dadka mu'miniinta ah oo wan wanaagsan ayaa lagu ammaanaya dadkaas wan wanaagsan baa lagu ammaanaya oo ilaahay bacdamaa uu ka soo sheekeeyey dadka xun baadilkooda oo ribada cunaya wuxuu haddana noo sheegayaa maadixan almu'miniin almudiiciin amrahu fi iqaamati asalaat dadka mu'miniinta ah oo ilaahay adeeca oo salaada ku dadaala oo zakada bixiya ayuu ilaahay ammaanay kuwa ilaahay iyo nabigiisa rumeeyey oo acmaasha suusuuban la yimid salaadii oogay oo zakadii bixiya buu ilaahay leeyihi oo zakadiina macnaha dhiibay weeyaan zakadiina bixiyey oo siiyey macnaha dadkii loogu talagalay ku sadaqeeyey lahum ajruhum ajirkooday leeyihiin cinda rabbihim walaa khawfun cabsina calayhim korkooda ma ahaanin walaa hum ayaguna maaha yaxzanuuna kuwa tiiraanyoonaya maaha thawaab kaamila bay leeyihiin jannada maalinta yowmulfazac alakbara ma tiiraanyoonayaan mana baqayaan yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu ilaahay rasuul rumeeyow ittaqu llaha ilaahay ka cabsada aayaddaani sideedaba waxay ku soo degootay niman la yidhaha reer bani camar min oo reer thaqiif ka mid a ayaa waxay dayman ku lahaayeen oo asxaabtii nabiga ku jira dayman bay waxay ku lahaayeen qolo kaleeto oo la yidhaha reer bani muqiro daynta waktigeedii markii la gaaray ayay waxay dhaheen waxay dooneen baa la yidhi in ay ribadii ilaa awalba falamaa xalla alajalu araaduu an yataqaaduu alriba ribadii inay macnaha waktigii baa la gaaray waa xoolo awal lagula heshiiyey oo markii waktiga la gaaraba loo dibdhigi jiray waa xoolo riba la socoto oo dayman riba la socoto ribo dheeraadaa la socota marka waxay maageen waktigii markii la gaaray nasiya bay dhaheen ribadeenni iyo xoolihii aan idinku lahayn aayaddan baa soo degootay aayaddaa markay soo degootay qoladii reer thaqiif waxay dhaheen annagu awood uma lihin ilaahay iyo rasuulkiisa inay nala dagaalaan oo cadaabta ilaahay nala geliyo awood uma lihin ilaa qofka ribada cuna ilaahay baa la dagaalamaya rasuulkiisa la dagaalamaya ribada ayaa la siinayaa baa la yidhi macnaha waxaan rabaa qofka ribada cuna oo riba cunka sameeya ilaahay baa la dagaalamaya rasuulkiisii baa la dagaalamaya marka cadaabta ilaahay baa lagu cadaabaya najaana allahu minha markaabay dheen anagu awoodtaa uma lihin ilaah bay u tooba keeneen xoolahoodii kaliya bay qaateen ribadiina way iska dhaafeen aayaddan ayuu ilaahay noogu sheegayaa qofka ribada cuna iyo qofka awliyada ilaahay la dagaalama labadaas qofood
ilaahay wuxuu noo sheegay oo nusuusta lagu caddeeyey iyo qur-aanka iyo axaadiista waxaa lagu caddeeyey qofka awliyada ilaahay col la noqda iyo qofka ribada cuna labadaba ilaahay baa la dagaalamaya. hadda ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka ribada cuna wuxuu ku leeyahay maalinta qiyaamo khud silaaxaka lilxarbi, hubkaaga soo qaado haddaad awood leedahay asaga kay difaacdo, waa adigii diiday ribada inaad iska dhaaftee bal soo qaado hubkaaga oo dagaalkayga u diyaar garow. ma ilaahay baad la dagaalami kartaa, lianna ilaahay baa la dagaalama qur-aankan noo sheegaya qofka ribada cuna dagaalka ilaahayna qofka inuu cadaabo oo naarta dhex geliyo weeye. rabbi hanaga badbaadiye. ilaahay wuxuuna leeyahay subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu ilaahya rasuul rumeeyow ittaqullaha ilaahay ka cabsada, wadaruu ka taga maa shaygii baqiya haray min arribaa ribada wixii ka haray iska dhaafa buu ilaahay leeyahy. yaa ayuha aladiina aamanuu ittaqullaha ilaahay ka cabsada, wadaruu ka taga maa baqiya wixii haray min arribaa ribada wixii ka baaqi ana iska dhaaf. oo haddii ribo horeeto aad ku lahaydeen dad, waa la xarimay ribadii iyo wixii baaqi ah oo dad ku lahaydeen waaba xaaraame daayaba, awalba xaq umaadannan lahayne. in kuntum haddii aad tihiin buu ilaahay leeya mu'miniin haddii aad tihiin sidaas sameeya. haddaad mu'miniin tihiin nuucaa ku dhaqma, ilaahay ka cabsada, awaamirtiisa qaata, wixii ribo ah oo dadka aad dul saarateen oad ku lahaydeen daaya, iskaba taayaba. in kuntum mu'miniina mu'miniin haddaad tihiin. fa in lam tafcaluu haddii aydnaan sidaa yeelin oodnaan amarkayga qaadanin buu ilaahay leeyahay oo ribada mucaamaladeeda aad iska dhaafi weydaan, fa'danuu ogaada bixarbin dagaalkaasoo min allaahi rabbi xaggiisa ka ahaaday iyo wa rasuulihi ilaahay rasuulkiisa. ilaahay iyo rasuulkiisa idinla dagaalamayo ogaada ribada haddaa iska dhaafi weydaan. wa in tubtum haddii aad tooba keentaan buu ilaahay yidhi ood ribadii ka soo laabataan, falakum waxaad leedihiin ru'uusu amwaalikum xoolihiinnii madaxyaalkoodii baad leedihiin. macnaha shaygii asalka ahaa oo kaa maqnaay ood xaqa u lahayd kaliya baad leedahay, dheeraadkii ka tag. wa in tubtum haddii aad tooba keentaan buu ilaahay yidhi oo ribadii aad ka soo laabataan ood ilaahay dartii uga laabataan, falakum waxaad leedihiin ru'uusu amwaalikum xoolihiinni madaxyaalkoodii laa tadlimuuna xaal aadnaan cidna dulminaynin oo aadnaan waxba ziyaado a qaadanaynin, walaa tudlamuuna aanna laydin dulminaynin, adinkana laydin dulmin mayo oo xaqiinni laydinka dulmin mayo. adinkuna cidna dulmin maysaanoo wax ziyaadaa qaadan maysiin, laakiin xoolihii idinka maqnay kaliyoo daynta ku maqnaa baad leedihiin. ribadii iska dhaafa, ru'uusulmaalkiinni qaata. wa in kaana duu cusratin fa nadiratun ilaa maysaratin wa an tasaddaquu khayrun lakum in kuntum taclamuun. aayaddan waxaa looga hadlayaa qof ka mida, macnaha qof baa dayn siiday, adugu waxaa tahay qof xoola haysta, qof baa kuu yimid oo dayn buu kaa qaatay, waa mucsir oo ma awoodo dayntii inuu bixiyo, waxaa waajib kugu ah ilaa uu xoola ka helo inaad sugto. jaahiligu siday yeeli jireen maya, jaahiligu qofka markay dayn siiyaan baa la yidhi oo daynta waktigeedii la gaaro waxay dhihi jireen imaa an taqdiya wa imaa an turbiya, ama dayntii hadda isii, haddii aad rabto inaan wax kuugu daro waktigii oo hadda aadan bixi karin waa inaad ribo iska dhiibtaa oo lacag kaloo dulsaara aad samaydaa. waa sida haddaba gaaladu haddaad wax daynsato oo waktigii lagugu talagalay la gaaro oo dayntaa aad bixi weyso, waxaa lagu saarayaa xoolo dheeraad ah oo macnaha waxa weeye sida rayntada, hadda waddankeena rayntaaba looga yaqaanba, xoolo dheeraada baa lagu saaranaya waktiga haddii la gaaro oo shayga aad ku bixi weyso. waa jaahiliga dhaqankii ay qabeen intaan qur-aanka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam aan lagu soo dejinin, ay ku dhaqmi jireen sidiiba hadda welina sugan, leanna gaaladu hadda dhaqankooda waa un nuucaasba. ilaahay marka wuxuuna leeyahay qof haddii au qof wax kaa daynsado oo waktigii aad ku ballanteen la gaaro oo daynta uu bixin waayo, shareecadu waxay ku saartay inaad sugato miskiinkaa, waxaana kuu khayr badan inaadba u cafidaba, ilaahay qiyaamada ha ku cafiye.
إلا إله سكا عفنا يا أدغنه هذا قف كعفيدو إله باكو عفنيه وحصو أرورتي حديث أو إمام البخاري صو صاريه وأبي هريرة أو كوري النبي النصوبا صلى الله عليه وسلم النبي قينو يري كان الرجل يداير الناس نمبا وحو هاتري أمديه هركا مدى ددك أيو دين سيجري ددك أشقى يوحو كله تريبا ليري هدي قف فقير إذين يمادو oo deynta iska bixin waaya iska cafiya la'alla Allah an yatajaawaza anna waxa dhici karta ilaahi annagana qiyaamada inuu nacafiye falaqiya Allah fatajaawaza anhu ninkii wuu dhintay maalinkii dambe acmaashiisii baa la fiiriyo gadaal loo raacay kaliya waxay noqotay inuu ahay nin naxariis badan oo mu'min ah oo ilaahayna rumaysan laakiin masaakiinta u naxariisto cafiye qofka aan wax iska dhiibi karin markaasuu ilaahay wuxuu yidhi cafiya maadaama uu cafi jiray masaakiinta hal la iska cafiyo malaa'igtii buu sii daayay aayaddan buu ilaahay nagu sheegaa waata wa in kaana haddii la helo oo ay sugnaato duu cusratin ruux culays u saaxiiba iyo faqrinimo cusradu waxa weeye waa ruux macnaha deyntii inuu bixiyabaa ku culusba wayba ku culus tahay baa la yidhi وإن كان أي وإن وجد هدي لهلو ذو عسرة روح ليس الصاحبة وأن دينت اسكب حنكرن هدي لهلو قفك معسر أو نقض وحان ربا وإن كان هدي لهلو هدي أهاتو ومعناها لهلو أما أي سقناتو ذو عسرة مد ليس الصاحبة إيا فقر النمو فنظرة سجد ilaa maysaratin tanaadid intii laga gaaro la sugo qofkaas cusrada u saaxiibka ah oo faqiirka ah in la sugo ilaa uu ka tanaado oo deynta iska bixin karo ayaa calayhi ruuxan wax iibinayo oo macnaha dushiina waxa ahaatay inaad sugtaan ilaa qofkaasu deynta iska bixi karo wa an tasaddaquu inaad ku sadaqaysataan qofkaa miskiinka ah ood u dhaaftaan deyntii lagu lahaay ayaa khayrun lakum idin khayr badan buu ilaahay leeyahay in kuntum hadaatiin taclamuuna kuwa og haddaad og tihiin arrinkaas faa'iidada ku sugan iyo wanaagga ku sugan iyo khayrka ku sugan taas baaba idin fiican li'anna waxa weeye maalinta qiyaamo idin anfacaysaa weeye arrinkaas inaad ku sadaqaydiin ood u cafidiin intaad dhihile deynta waa kaa sugana in la yidhaha waa waajibba waxaana ka sii fiican waa kuu cafiya in la yidhaahdo واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ترجعون ترجعون والله بقروا وقرآن كالله أخريويا آيضا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وآيدي أغضا بيسي أو نبي النصوبا عليه الصلاة والسلام لقصوا الدجيبا ليري وآيدي أغضا بيسي أو نبي النصوبا عليه الصلاة والسلام qur'aanka lagu soo dejiyay ahaad baa la yidhi waxa weeye aayaddaani sidaa bay ahayd waa aayaddii ugu dambaysoo nabigeena lagu soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam hadda ka horna waanu ka soo hadalnay inay aayaddan ahayd wattaquu sida raajixa ah aayado ka alyawma akmaltu lakum diinakum iyo aayaddaas iyo waa la wariyey laakiin tan baa mufasiriinta oo dhan jumhuurtan bay isku raaceen tanaa loo badan yahay واتقوا كعبسدا يوما مالن كعبسدا يوم كاسو ترجعون ليدين علينيو فيه يوم كدحديس إلى الله مالن كإلهي ليدين علينيو مالن كإلهي ليدين علينيو معناها مالن كعجيب كأه أو سننفعين إلا عمل الصالح مالن كأسك إلالي ورمالن كأسك الدكتوناد ومالن قفول بإلهي لكل ما سبحانه وتعالى أصغو كليه ومالن كي النبي يري عليه الصلاة والسلام مالن تقياب أمد وحال صوكل مدونا حفاتا أيغو عقعد بو يري أو قفكب وطان لاركنين عرلا أيغو وحوي عراتا بان ربا أيغو نروضانين haddana qurlan ayagoo qof walba uusan qof gudan la arkinin oo qof walba sidii hooyadii u dhashay iyadoo ah ayaa banaanka qiyaamo la isku keenay doonaa buu nabigu yiri kaleey salaatu wasalaam ummuna Aisha waxay nabiga su'aashay baa la yiri
الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض يا رسول الله جميعا مرق إيا الضمر با انت بنانك قياما ليسوه كيانو أيغو دروضا ننبا هلكا لغو كل ميابي تري مركاسو نبيقو او قاركود قار كلا فيرسانا يا مركا داوانا يا نبيقو وحو يرى عليه الصلاة والسلام dhibka iyo hawlka iyo shiddada qiyaamo ayaa ka weynin badan qofka qalbigiisa inay ku soo dhacdo qof kale xaqiisa inuu fiiriyaba ma awoodo qofku inuu qof kale xaqiisa fiiriyo qiyaamada ma uu awoodo ilaahay wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala wattaqu ka'absada yawman maalin yoomkaasoo turjacuuna laydin celinayo fiihi dhaxdiisa ila allah ilaahay laydin celinayo maalinkaad ilaahay la kulmi doontiin ثم توفى لو اوفينيو كل نفس نف والبابا ما كسبت وحي شقيستي نف والبا وحي كسبتا لو اوفينيه نف والبا وحي سو شقيستي oo adduunyada ay ku soo shaqayday ayaa gacanta loo gelinaya weeyaan wal hal hum dadkii la yudlamuuna aan la dulminaynin way qof la dulminaa ma jirto ilaahay dulmi waa ka mustaxiil والحال هم أيها لا يظلمون أن لظلمين أو لظلمين مايو أو وناك أي صوص سميين لغا يرين مايو حمان أي سن سمين دوشا لغا سارين مايو لظلمين مايو ضدك قف والبنا إله بألا صهور تاتين إياه مركابا لرح حساب تمياوي آيضا سيدا أصبع معناها وحوي آيضهان سيدا أصبع اللو قد بمري وارن عجيبا وي مركا آيضا أنبا اللي يرهده نبي عليه الصلاة والسلام وآيدي أقدم بيسي آخر ما نزل من القرآن العظيم الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وآيدي أقدم بيضو النبي اللي سودتي آيدا مركي اللي سودتي كبعدي قرآن كلا النبي اللي سودتي باليري سقالها بينبو كبعدي الدوية كنولا ثم انتقل إلى الرفيق الأعلى كبعدنا النبي نواه الله أفصديه دارت الدوية مال كفي عن أيو إلهي أولي صلى الله عليه وسلم والحال هم أيها لا يظلمون درسك أن تفسير كعاو انت سنكسو كوبينا والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.